dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamka 18 May oo ku yaala duleedka magaalada Burco ayaa ka hadlay xaaladooda nololeed. Dadkani oo u badan haween iyo dad waayeel ah oo bulsha TV la hadlay ayaa sheegay inay u baahan yihiin in loo dhiso rug boolis oo ammaankooda sugta. Waxaanay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Cali Maxamed Faarax ku eedeeyeen inuu ka dhaga adeegay inuu ciidamo booliis geeyo kaamkan. iyada uu yaala dadkan halkan xukuumadda Soomaaliland buu yaala iyo 3500 qoys baa yaala abniga in laga iibiyo sida shilin guratada taliyaha qaybtu uu yiraahdo 5,000 ciidanka soo siiya waajib ma aha halkan ina xaq u male arin Soomaaliland darnimana ma aha halkan rug caafimaad male halkan saldhig bilays male halkan iskuul male wax allaale iyo wax adduunyaha halka mas'uuliyadda taala Soomaaliland bay u taal waxay u taalaa madaxweynaha qaran xaafadani waxay isugu soo baxday oo ay halka u tibi barakacayaashaahi amni xumo kaga timi gobolka oo ah taliyaha qaybta Cali Gaadayare waxaan u geynay iyadoo qaxootiga barakacayaasha in yaroo alaabaho faradhaqa loo bixinayo sidii hay'adaha COVID-19 u xilay wax macluumaad oo weyn dadku kama helin waxa la bixiyaa waa farxal door ka horeysa ayaan u tagnay Cali Faarax Maxamed ninka la yiraahdo taliya qaybta waxaan ku niri waxaan u baahanahay dadka barakacayaasha wax yar aan u qaybinayno ciidan amniga ciidanka amniga aha wuxuu lagu yiri lacag ma haystaan ciidanka askarta la siiyo gaariga shidaalkiisa war taliye gobolka oo dhabaatay meel xagashada xado dadkan wadad barakacayaal masaakiin waxa la tira mooyaane waxa ma hayaane amni baan kaaga baahanahay war ciidan kugu dareema ma jirto waxaan leenahay maxamed aadin saqadi daba gale taliyaha janaka booliska ee qaaliga waliba sida sharafta loo shaqeynaya shaqayaanka hana laga qabto ninka la yiraahdo Cali Gaadayare ee taliyaha qaybta gobolka ah hana laga qabto amniga xaafadaha iyo gobolka ma soo karayo dadka masaakiinta saldhig bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin amni bay u baahan yihiin wax ka soo bilaadan bulshadu ay u baahan yihiin waxaanu codsanaynaa taliyaha ciidanka bilayska waxaanu ka codsanaynaa inuu naga qabto jananka naga iibiyay ciidamada nabadgelyada ilaalin lahaa naga iibiyay wuu naga iibiyay hadii aydan lacag ku bixinay idin siin maayo shidaalka aydan lacag ku bixinaysa waa iib ciidanka nabadgelyada naga iibiyay waxa naga iibiyay taliyaha qaybta bilayska gobolka Togdheer waxaanu halkan uga baahanayo kaliya in loo keeno saldhig ciidan oo ka shaqeeya amniga halka cid kasta oo Soomaaliland oo mas'uul waxaan uga baahanahay inaanu helo rug boolis iyo ciidan amniga ka shaqeeya oo nala shaqeeya ilaahay baa yiri amniga iyo iimaanka waxa horeeya amniga taliye waxaan ka codsanaynaa ciidan saldhig boolis noo haya oo tayo leh haddii ciidanku yaraaday xaafadda barag xoogahay waa joogaan qaramada baan ku leenaado loogu darbaan ku leenahay booliska waxaanu ka codsanaynaa jananka wasiirka arrimaha gudaha ilaa iyo madaxweyne waxaan ka codsanaynaa uu arkayaa inuu noo sameeyo rig bilis oo ninka nooga hiiliyo nasnala siiyo bilis badfadlakumna kala celiya oo na dhex jooga oo amniga iyaga suga. dhanka kale taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Cali Maxamed Faarax oo aan isku daynay inaanu wax ka weydiino cabashada loo soo jeediyay ayaanay noo suurtagelin. Axmed Kaafi iyo Deeqa Lagis Bulsho TV Burco.